kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Xiraale ee gobol Galgaduud ayay kaga hadlayeen ku dhawaaqista guddiga dib u heshiisiinta beelaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo xalay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ay kaga dhawaaqday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa kulankan ka qayb galay maamulka Xiraale xildhibaano wasiirro ka tirsan Galmudug odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Xiraale iyagoo si isku mid ah uga soo horjeestay qaabka loo maray soo xulista xubnaha guddiga dib u heshiisiinta iyo isku keenida beelaha Galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada Xiraale odayaasha dhaqanka xildhibaanada iyo wasiirrada oo shir jaraad si wadajir ah u qabtay ayaa sheegay in qaabka loo maray soo xulidu aysan ahayn mid ku saleysan qaabka 11 beelood ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug wax u qaybsadaan waxay sheegeen inaysan ku qanacsaneyn qabashada guddigan shir dib u heshiisiin oo beelaha Galmudug la isku keeno waxaan qaadanay go'aan haddaan degmada Xiraale nahay go'aankaasi wuxuu yahay inaanan waxa Dhuusamareeb ka socda oo shirka loogu yeerayo inaanan u arag shir Soomaaliyeed inuu yahay inaanan u arag shir maamul goboleed inuu yahay inaanan u arag shir nabtayada aan ku ammaan ku tagi karno ama aan ku nabadgelayno inuu yahay ummadda halala tashado ummadda arrinta iska leh talada waxa ku yeesheen arrintooda gacantooda hal isku soo celsho Galmudug waxaa dhistay 11 beelood sharci bay samaysteen baarlamaan bay samaysteen madaxweyne ay doorteen sidaas ay dawlad ku ahaayeen ayadii in dib loo yagleelo oo la isugu yeero ummadii oo arrintooda ay ka wada tashadaan oo waxay ku midaysan yihiin ay ku dhaqaaqaan dawladuna ay ku taageerto annagu saasaan soo jeedinaynaa guddiga dib u heshiisiinta oo la magacaabay waxna matala ma joogaan mana ka jiraan mana ka qayb gelina gogoshaas kamana qayb geli doono guddiga hadda uu magacaabay ee qarafaan wax kuma lihin shaqo kuma lihin waxna matala maahan waa hawl asaga u taala qofkuna wuxuu rabu sheegaya waxaan ilaahay uga mahadinaynaa inaan xor nahay oo aanan khayra iyo qarafaan midna gacan ugu jirin iyo kuwa ay la joogaan oo ka deegaan ahaan iyo ka dad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka dawlad ahaanba iyo ka degmo ahaanba fikirka uu ra'iisul wasaaruhu ku dhaqaaqay ummadda Soomaaliyeedna waanu u sheegaynaa innaguna waan qaadacnay diyaarna uma nihin gogashana meel Galmudug ay tagi karto nabad ah ummadda u siman hadhigu wadatashi dheer kadib bayaankan waxaan ku soo saaraynaa haddii ay tahay gogoshaas meesha la dhigay haddii ay tahay guddiga meesha ka soo baxay haddii ay tahay talada ka dambaysa oo ka socota haddii ay tahay cidda la yiri amni baa lagu wareejiyay dan gaara iyo dad gaara wax u adeegaya weeye qaybna kama ihin kamana ahaan doono talada aan bixinaynahayna waxay tahay dawladdu dib u heshiisiin iyo talo loo dhan yahay inay u soo laabato dadku wax wada yeeshaan amniga iyo aayahooda ay ka tashadaan gogoshu meel la dhigi karo munaasaba ay isweydiiyaan waxaan ogolnahay in Galmudug midaysan la dhiso waxaan ogolnahay in ciidamada la isku dhafo waxaan ogolnahay in dawladnimadu shaqayso waxaan ogolnahay wax kasta oo xal ah in la gaaro Saciid Cabdi Maxamed wararka TV-ga Universal Xiraale